dhammaanteen waxaynu doonaynaa inaynu aqoon yeelanno. Waxaynu doonaynaa inaynu marun ka midho dhalino waxa maskaxdeena ka guuxaya. Wax akhrisku waa wadada ugu tulmoon ee aynu aqoon ku heli karayno. Laakiin ka waran haddii aynanba garanayn sida loo akhriyo buugaagta ku qoran afka Ingiriishta. Ama aad tahay arday jaamacadeed oo marka loo soo diro research ama inuu wax soo baadho ku dhex wareero Google-ka. Caqabadaha haysta ardaydeena wax baranaysa maaha aqoon yari ee waa aqoontii oo aanay sii baadhaynin. Tanna waxaa sababay garasho la'aanta luqadda Ingiriishta. Dhibaatada kale ee inaga haysata luqadda Ingiriishta waa helidda habkii ama meeshii laga baran lahaa. Runtii tanina waa ta dadka inta badan dib u dhigta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لو حسيتو سكولا هالليا بدل قونيتك يوتوك هاب waxaan arkaynaa adigoo ku wareersan habkii aad u baran lahayd luqadda Englishta. Walaal madal aqooneedka YouTube Hub wuxuu raacaa hab aqoomeynta loo yaqaano CEFR system oo loo soo gaabiyey The Common European Framework of Reference for Languages. Habkan oo laga raaco waddanka UK maalinta Sabtida, Axadda iyo Isniinta. website-kaygaad koorsiyada ka dhigan doontaa marka qofku xilli allaale iyo xilligu doono ayuu casharada dhiganayaa waayo anaga casharadeedu waxay ku kaydsan yihiin website-kayga. maalinta salaasadana qofku wuxuu soo gelayaa application-ka Google Meeting la dhaho halkaas oo macallimiin caddaani practice kugula samayn doonto. qofku walaal hadduu hadda isdiiwaan geliyo wuxuu helayaa hal koobi oo bilaash ah oo buugga loo yaqaano The Ultimate English. iminkana waxaanu bixinaynaa 2 qof oo si bilaash ah ku dhigan doona koorsooyinka ka baxa YouTube Hub. والمحاد جيجي ساكو صوبير يوتيوب هاب